السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد هبال الميديا شينا علي أو أفلقادو عي يبهدلات اسكوكو داري فايسة عويل أو يكوضا قيب قاتين ضد أي قبطي إذا عبد بي بي سي ده كنا رئيسي إن شينا أو أفلقاد دي هبلا صوماليين كدبنا قرالة إيا فيديو يو صوري جاي برتيسا فيسبوكا أيو وير الحوغن كو قاضي فايسة عويل هذا ما حاكيني إن شينا علي أو أفلقاد ديو ama sawirro khaldan iyo muuqaallo khaldan uu ka soo dhigo faa'iiso cawil aadse hadda soo booqatay hubaal miidiyaha ilaawin inaad subscribe garaysato rukumato ku dhufato alamka si mar walba aad u hesho xogtaan kuu soo gudbinayno bal nala daawo faa'iiso cawil oo sheegayso in shiina culay uu ku hayo hablaha Soomaaliyeed bahdilaad cay iyo aflagaada joogta saacad walba والله horta shiina culay anigu fiidiyoyaal badan isagu leeyahay maan aad u daawan laakiin waxa dhacday fiidiyoyaal ugu dambeeyay oo aan daawaday markaana interest waxaan ku noqday inaan eego bal YouTube ku isticmaalo inaan kan iyo Facebook kiisa saan u arko waxaan la sheegayna runtii wax aad u foolxun baan arkay inaan kan uu sameynayo shiina culay hadduu maqlayo kolley waxa weeye dad badan oo kalena way arkayaan waxaad u maleysaa markuu social media soo galay inuu ugu talagalay inuu dadka attack garayo oo kale especially dumarka oo kale yani marka qaarkood dad aragtid waxyaalaha afkiisa ka soo baxaya haddii lagu tarjumi lahaa luqadda ingiriiska oo kale yani wax weyn baa runtii social media iska bedeli lahaa marka inuu wala jooga waa weydiin doonaa maxaa kamid ah oo adigu arkay ama dad badan kale way ogyihiin hadda labadii video I think about waxay ahayd maybe 6 week ama wax ka sii horeeyay kumid hay'ad gabadhii fanaanada caankeeda hani UK oo kale uu ku maaratay uu ku cambaareenayo kale wax aad runtii u fool xum oo gabar Soomaaliyeed lagu yiraahdo bay ahayd runtii oo dad badan ay ka naxeen especially markay gabadhu tahay hooyo oo kale marka shiina culay runtii waxa weeyaan waa dadka farakutiriska ah ee imikaad u maleeshada inuu social media u isticmaalayo si khaldan waxay sheegtay in shiina culay uu ku hayo gabdhaha Soomaaliyeed ay iyo aflagaada joogta ah isagoo aan waxba xeerinin marka uu hadlayana aad moodayso in uu ku jiro weerar iyo dagaal cad faa'iiso waxa kale oo sheegtay in shiina culay dadku aad ku aflagaadeeyay ay kamid tahay gabadha Soomaaliyeed fanaanada ah ee lagu magacaabo Hani UK shiina culayna markay su'aasha weydiisay marnaba iskama difaacin mana dhihin mana caayin mana dhihi karaba oo waayo kumanaan Soomaali waxay og yihiin in shiina culay si xadka ka baxsan oo aflagaadeeyay Hani UK waliba uu ku tuntay sharafteedii aan u bahdilay kuna sheegay in ay khamri cabtay oo tumanaysay oo wareersanayd haddaba markii doodii halkaasi ay ku soo dhamaatay BBC da ayuu shiina culay soo dhigay qoraalkan Facebook-giisa wuxuuna ku bilaabay qoraalkiisa oo ka heli kartaan bartiisa Facebook-ga qoftan miisaanka leh ee laba lafoodka ah markii aan iri waa la doodayaa baan bad isku galay aniga oo tabardarri darteed dabayshu ituurayso markii aan isha ku dhuftay baan gartay in aanan ku aadi karin BBC Soomaali cadaalad ku shaqeeya oo dad is-ceshan kara isu keena doodii kadib ayuu qoraalkan soo dhigay bartiisa Facebook shiina culay waa arkaysan waa aflagaada iyo cay iyo jirrimo iyo bahdilaad uu ku sameeyay faa'iiso cawil oo ah gabar Soomaaliyeed kulana talisay shiina culay in uu hablaha Soomaaliyeed ka daayo cayda iyo aflagaadada iyo bahdilaada joogtada iyo weerarka uu ku hayo baraha bulshadana uu uga faa'iideysto waxyaalo kale oo bulshadana anfacaya isagana naftiisa anfacaya ma uusan sii joojinin shiina culay wuxuu soo dhigay qoraalkan iyo muuqaalkan oo iswato balse markii kumanaan Soomaaliya ay weerar ku qaadeen uu ka saaray bartiisa Facebook balse xilligaas aan soo downgeeyay ama aan ku soo shubay telefoonkayga si ay u noqoto cadayn kana qaaday screenshot هاي محلويسة ومتشعين كيف هسلا كان دقي ودوك كده يلا الصبح لا يلا ويسلا برونسا شايل بيا
أنا هو كنت على هذا كنت على مركب وين نوك يصل دعاية ويا يوم برورتايون يا بدأ هذا الشيء حنكون يوم كنت علنا يوم بقول كنت علنا يوم إحنا بيني ما بسوي على يوم كنت علنا كالنس كسرنا عروض لنا يا ونقدر قيل هذا يوم هنتني واحد فيني مال ويسكيا بناي اللي ما ذا تعيش وانا دي عدي صاي وانا دي وجاي وانا دي برورت muuqaalkan sida aad ka dheehan kartaan ama aad ka fahmi kartaanba ma ahan in ay faa'iza awil ay u ooyeyso ama u bororanayso nin ma aha waa muuqaal iyadu ay labada muuqaalba iyadu leedahay kan ninka matalayana iyada iskale kan qofka dumarka matalayana iyada iskale waana muuqaal aad moodo in uu yahay wacyigelin oo waayo faa'iza hore waxay u sheegtay in ay baraha bulshada u adeegsatay inta badan wacyigelinta dadka Soomaalida marka waxa ku muuqato muuqaal ay iyadu laftigeeda labada dhinacba jaleysay oo midna nin ay iska dhigaysay midna qof dumar ay iska dhigaysay in Shiina Culay uu adeegsaday ama uu ku fadeexeeyay Faiza Awil in ay iska dhigayso qof u ooyahayanin taas oo waxay ku sheegaysay Faiza Awil Shiina Culay ay tahayba mid xaqiiqo ah oo dhabta ku salaysan una mar walba beegs iyo bahdilaad ku hayo gabdhaha Soomaaliyeed haddaba Shiina Culay wixii ay Faiza ku sheegaysay bahdilaadii ay ku sheegaysay gabdhaha ku hayo caydii ay ku sheegaysay fuxshigii ay ku sheegaysay ceebtii ay ku sheegaysay iyadoo biyo ismarinin soo banaanka ma imaanin Hubal Media waxay u diraysaa Shiina Culay digniin kama dambays ah in uu joojiyo beegsiga iyo bahdilaada iyo cayda uu ku hayo gabdhaha Soomaaliyeed una ka digtoonaado in mar dambe uu muuqaal noocaasa uu ku soo duubo tan kale Shiina Culay waxay ku waananaysaa Hubal Media wuxuu sheegtaa in uu baraha bulshada qof caana ka yahay idaacado iyo doodo in loogu yeero laga yaaba ama shirar loogu yeero shalay haniyuukay wuxuu ku caayahayay xafladeeda oo lagu casuumay maanta dood uu la galay gabadhan haddana ku caayaya Shiina Culay adiga laftigaadu dad badan baa laga yaabaa inay ku interest gareynayaan inay doodo kula galaan inay barnaamij kala qayb qaataan isku day in aad at least wax un xeeriso oo laga amaan helo oo laga nabad galo sifo dadkana aad wanaag ugu dhex samayso adigana aad dadka bulshada dhexdooda ugu dhex jirto waxaan u malayn hadda kadib inaysan jiri doonin gabadh ama xafladeeda kugu casuunto ama dood ay ka qayb qaadanayso kugu casuumi doonto waayo tilaabadii ugu horeysayba waad falgaraysay automatically you are failed so stop and stop it